بسم الله. سؤال maanta aan ka jawaabaya waxay tahay how medicine, vaccines and diagnostics are discovered. Su'aashan waxay ka dhalatay markii su'aalo badan oo ku saabsan dawo maxaa noqonaya waxa cudur jira sida corona oo kale oo loo isticmaalay alaabo badan oo qaarkood cunno ay yihiin laakiin lagu tilmaamay inay dawo yihiin. Marka waxaan doonayaa inaan ka hadlo kaliya wixii aan ogahay ee aqoontuna ay saamaxayso inay jiraan. Waxay tahay cudurrada horta waxaa dhaliya jaraatim la yaqaano oo ay bacteria, virus, parasites iyo kuwa kale ay jiraan. oo kuwaas waxaa loo yaqaanaa cudur dhaliyayaal. Cudur bay dhaliyaan marka ay qofka ku soo darsaan ayay cudur ku keenaan. maadaama ay cudur dhaliyayaal yihiin si xal looga gaaro marka waa in loo helaa waxyaabo badan oo ay ka midka yihiin in la heli karo wax lagu ogaado inay jirka ku jiraan oo baaritaankii ah iyo in la heli karo wax lagu daweeyo dhibka ay gaarsiinayaan iyo in la heli karo haddii loo baahdo aalad ama wax loogu hortegi karo si aan cudurka dib dambe ugu soo noqon qofka. Intuba waxa weeyaan waa therapeutic, waa immuno-diagnostic and vaccine baan ka hadlayaa. Marka waxaa jira culuum dhan oo ku shaqo leh waxaasi oo basic science research ah oo bakteeriyada cudurrada ay keento ciidda ka badan dad waxaa ku takhasusay oo bacteriologist ah, viruska sidoo kale virologist, parasiteska parasitologist oo dad ku takhasusay wax kale aanan qaban oo shaqadooda dhan ay tahay parasitekaas iyo microbiology iyo wixii la mid ah. marka dadkaas waxay sameynayaan cudurka cusub marka hore waa inay fahmaan waxa uu yahay. sida hadda corona dhacday oo kale markii ugu horeysay si looga gartaa waxa cidda uu yahay ee cudurkan calaamadahan keenaya waa in la darso oo la ogaado oo la sequence gareeyo. markaas waxa ku soo baxaysa virus hadduu yahay ciddu virus ka yahay. haddaa maxaan ku radaa uu yahay magaciisa corona uu yahay corona way badan yihiin qolada uu ka sii yahay. markaas sidaas dhacday in loo yaqaano novel coronavirus oo inuu noqdo coronavirus aan hore caalamka u soo marin markii sequence-giisii ama DNA-diisii la fiiriyay. marka taa hadday tahay marka dawo si loo helo su'aasha waxay tahay maxaa dawo ilaa hadda loo laayahay ma dawo maxaan ku rahdaa dhaqso la daweeyo. dawo waxay tahay si loo helaa marka hore waa in la helaa targetkii. dawo waxay ku shaqaysaa waxay tahay target waa inay heshaa meel ay target garayso si loo ogaado cell receptorki markaa ku habboonaa ee la target gareyn lahaa ayaa scientistiga in this case marka virologistiga waxay sameynayaan cudurkii bay darsayaan oo ay baarayaan oo kala dhigdhigayaan. marka ay kala dhigdhigaan oo ay sequence gareeyaan xagga DNA-diisii, RNA-diisii, genome-kiisii oo loo isticmaalo high throughput maxaan ku rahdaa sequencing tools oo sheegaya marka intee gene baa ku jirta, enzymeska ku jira, surface-kiisa maxaan ku rahdaa proteinada ku jira, all that kind of details baa la baarayaa cudur dhaliyihii ee viruska ahaa. marka taa la baaro ayaa waxaa la ogaanayaa marka inteeba caadi ah oo ummadaha kale isaga mid yihiin inteeba unique ku ah agentigan cusub ee pathogenka ah. cudur dhaliyahan inteeba ku cusub asaga oo uu kaga duwan yahay ummadaha kale. waxa unique u ah baa marka waxay noqon karayaan wax lagu yaqaan cudurkan cusub. waxa unique ah ee cudurkan ama shaygan cusub ee caalamka ku soo kordhay ama qofka ku soo kordhay ama nolosha bini'aadamka ku soo kordhay isaga lagu garan karayaa loona heli karayaa markaas inuu noqdo wax diagnostic ee lagu ogaan karo. maxaa yeelay haddii cudurku kan yahay tusaale ahaan hadaan ka soo qaadno hadda surface-kiisa wax baa ka buuxa sida geedkan spikeska proteinada aan aragnay maxaan ku rahdaa aad arkaysa madaxa shaydaanka ah gudihiisa dheecaano ayaa maxaa la dhihi jiray enzymes u sahlaya inuu ku gudbo maxaan ku rahdaa seelku ku galo. kadib seelka marka uu galo waxyaalo badan buu secretion buu sameynayaa oo uu ku keenaya markaa unugyadii uu taabtay inuu ku replicate garoosmo oo ku bato dabadeedna uu ku keeno pathogenesis wax loo yaqaano oo ah cudur dhalin. that process of pathogenesis oo pathology-ga uu soo baxayo cudurka ayaa waxaa la doonayaa marka hore in la fahmo waxaan u saamaxaya shaygan cusub ee viruska ah bakteeriyada ah maxay yihiin. that is the target receptor number 1.
marka la identify gareeyo oo scientists-yaashu ay gartaaniin waxaasi inay DNA tahay inay maxaan ku rahdaa protein yahay wuxuu yahayba marka la helo then waxaa loo gudbayaa phase-ka kale phase-ka kale waxay tahay targetkii la helay sidii wax looga qaban lahaa marka sidii loo block gareyn lahaa sidii loo alter gareyn lahaa sidii loo block gareeyo waxay noqonaysaa marka haddii enzymes uu soo diinayay oo u sahmaxayay maxaa la dhihi jiray viruskan inuu hawshiisa qabsado oo pathogenska cudur dhalinta ah waxaa la raadinayaa inteeba interruptionka ku fiican ma marka uu jirka soo gelayo ma marka uu galo ma marka sambabada uu gaaro goortee ugu habboon ee aan interruption ku samayn karaynaa marka waxaa scientistigu ay qabanayaan a lot of thousands of genes tons of enzymes ama proteino oo la doonaya mid kastaba meeshaasaanu interruption kaga samaynaynaa meeshaas way meesha ugu habboon marka taabaa waxaa dhacaysa qolobaba inay hal fragment oo gene ama protein in ay la socoto oo suuqa la gasho marka waxa aan doonaya waxay tahay waxa xooga la saaraya waxay tahay marka hore receptorkaasi in la helo dabadeedna receptorka markii la helo in loo raadiyo wixii lagu oodi lahaa wixii lagu block gareyn lahaa tusaale ahaan receptorka haddii aan doonayo inaan wax yar bidhaamiyo hadda ma haysto fure iyo qoful ma haysto laakiin waxaan haystaa qalin iyo furkiisa haddii receptorka kaa uu yahay waa in loo helaa maxaa la dhihi jiray wax ay sidaa isu qaadanayaan haddaanu maxaan ku rahdaa loo helin wixii lagu oodi lahaa lagu qaban lahaa lagu block gareyn lahaa sida hadda qofulkii oo kale haddii gurigu uu ii xiran yahay aan furo la imaado oo furahaasi aan ku furto gurigaygu uu ii furmaya haddaan haysto the right key laakiin haddaan la imaado furo kale noocu doona iskala imaado guriga ma ku furan karayaa may irid xiran ma furan karaya maya sidaasaa cellskuna receptoray u leeyihiin ilaa aad u heshaa receptorkaasi wixii aad ku taargeergareyn lahayd oo aad ku falgelin lahayd ku qaban lahayd ku block gareyn lahayd inaad u heshaa marka scientistiga aad arkaysaan ee virologistiga caalamka dhan ama science meeshuu ahaadaba dhaqaatiirta dhan waxay ku mashquulsan yihiin waxay tahay in la helo wixii ku habboonaa taasoo hadda bilaabatay thousands of candidates oo qof waliba mid dusha ka eega mid dusha ka abaara spike mid gudaha ka abaara enzymes mid waxyaalo badan baa dadku ay ku mashquulsan yihiin taana weeyata aan doonayo inaan runtii aan hadduu allaydmo aan su'aalaha kale uga jawaabo marka maxaa tusaalana siinaysaa sida ay wax u sheegaysid tusaalahan ku siinaya waxay tahay waxaad soo qaadataa tusaale ugu sahlan dawada si u shaqayso haddii xanuun uu dhaco haddii gacantaydaas aan isa saro oo damage tissue uu dhaco ama haddii aan jabo oo gacanta maxaan ku radaa iga jabto oo laf ay jabto waxaa dhacaya ayaan raba inaan ku tuso damage tissuegaasi iyo maxaan ku radaa broken maxaan ku radaa waxaa lagu daweyn karaa marka hore underlyingkii jabidii iyo meeshii in la tolo laakiin inta taa laga gaaraya taasoo xalkii la rabay in la sameeyo ah laakiin xanuun baa dhacaya xanuunkaas sidee buu ku dhacayaa broken tissuegii dhacay meeshii la dilaacantay isla markii enzyme waxay soo deynaysaa maxaan ku rahdaa cells oo histamine la yidhaahdo histaminkaasoo ka caraysiiya maxaan ku rahdaa pain receptorro oo jirkaygu leeyahay pain receptorradaasi baa inta ay fariimahoodi diraan waxay u dirayaan maskaxdayda oo ay leeyihiin waa laysa soo galay xanuun baa jira xanuunka xaguu ka jira bartaasuu ka jira fartaas maxamed uu leeyahay ayaa meeshaasaa dhaawac ka jira deen maskaxdayda waxay soo deynaysaa waxa loo yaqaano endorphin hormones oo iyana markaasi jirkayga u saamaxaya in ay xanuunka ay blogareeyaan oo pain receptorradii ay blogareeyaan haddii xanuunkii uu ka zaa'id caleeyo oo uu joogto noqdo maskaxdii markaasaa markastaba dadaalkaasi ku jirtaa inay hilmaansiiso xanuunka laakiin marka laga bato xanuunku bato waxay noqonaysaa xanuunka inaan u xanuunsado inaan xanuunka dareemo inaan xanuunka u ooyo taasi waa tan caadiga ah ee xanuunka ah marka waxaa jira aspirin ama pain relief medication oo tusaale ahaan caruurnimadeennii bayer aspirin bayer
ay soo saari jirtay ilaa haddana ay soo saarto caankana ku tahay sida uu shaqeeyo wuxuu yahay tusaale ahaan wuxuu isku dayayaa in uu maxaa la dhihi jiray blockage sameeyo pain receptoradii u warramayey maskaxdayda xanuunka tusayay dhahaya xanuun baa jira ayaa waxay isku dayaa inay hilmaansiiyaan inay cover gareeyaan pain receptoradii oo ay uga dhigaan hawshan way dhammaatay hawshatan waa la xalliyey marka waxay sasabi karaan ilaa 3 saac ilaa 4 saac dooskaasi 4 saac markuu iga dhammaado oo kaniinkii uu jirkayga ku milmo dabadeedna xanuunkii baan dib u dareemayaa haddii xanuunku uu weli jiro marka taas waxaan rabaa inaan ku dareensiiyo sida agentiga dawooyinka waxyaalaha bini'aadamka uu sameeyey sancada uu gaaray ee dawada ah ama talaalka ah ama diagnostic ah sida u shaqeeyaan iyo sida waqti iyo aqoon iyo lacag ay ugu baxdo ayaan rabaa kaliya inaan ku dareensiiyo waxaa dhacaysa marka haddii pain medication-ku sida u shaqeeyo oo receptor uu abaarayo specific ku ah haddaad aragtid cudur aan weli waxba loo helin weli waa la raadinayaa waa lagu mashquulsan yahay cudurka weli waa lagu mashquulsan yahay waxaa kaloo jirta oo ina runtii marka ay aadanuhu haddaba gaareen in pain receptorada ee maskaxdu ay soo daynayso endorphinkii baa la doonay in la sameeyo isagiiba synthetic ah oo opioidkaas aad arkaysaan marka bini'aadamku wuxuu isku dayay sancadiisu ay gaadhay in maxaa la dhihi jiray endorphinskii in iyagiiba la sameeyo oo la qaato oo dawo ahaan loo qaato taasoo keenaysa marka qofka in ay hilmaansiiso waxyaabo badan oo xanuun ah oo gudihiisa ama stress badan oo qofka haystay taasoo markaa happiness iyo farxad iyo waxyaalo badan oo saas oo kale ku keentay oo mararka qaarkood loo baahan yahay marka uu xanuun ba'an uu jiro sida hooyada umashay iyo xanuunka ba'an ee acute-ka ah dadka qaarkood haya ama dadka maxaan ku radaa xanuunada terminal ilka ah ee maxaan ku u dhimanaya dad noocaas oo kale lagu daweeyo way jirtaa oo xanuunka lagu hilmaansiiyo laakiin dhibaatooyin badan oo ka yimid iyana marar kalenu ka hadli doonaa oo crisis-ka hadda jira ee endorphinka uu ummadda ku keenay ee opioid crisis-ka ah marka almuhima waxaan ku tusayey oo aan rabay inaan runtii dadka iyaga la wadaago dawo oo medication ama medicine vaccine talaal iyo diagnostic iyo wixii wax lagu baari lahaa in dhammaantood ay yihiin wax cilmi ku salaysan oo receptoro iyo proteino iyo gene iyo enzymes oo laga keenay pathogenkii cudur dhaliyaha ha laga keenay oo la yaqaano oo la abuuray la badiyey oo la isticmaalayo weeyaan oo la yaqaano wax uu qabto oo process dheer maray oo dadku ay waqti geliyeen oo sanooyin badan laga soo shaqeynayay lacagna la geliyay wixii kale ee dadku ay cunaan haddii aan maxaan ku rahdaa anigu aan toon baan cunay haddii aan raystana waan raysto ilaah baa i raysiiyey ee toonta inay dawo u ahayd iyo xabasowda inay dawo u ahayd iyo malab inuu dawo u ahaa ilaah baa og ilaa aan gaaro aqoontaydu ay gaarsiiso ama culammadayda islaamiga ay gaarsiiyaan ama aanu annagu soo saarano in malabka molecuulada ku jira iyo faa'iido uu leeyahay iyo targetka meesha uu abaarayo markaasaanu maxaan ku dhihi karaynaa yes molecuulkaasi ku jira ayaa maxaan ku sabab u ahaa ilaahna waa awoodaa inuu na gaarsiiyo bini'aadamkuna aqoonta wax badan lagama siin ilaa wax yar mooyaane marka qof kastoo aadana ah diintuu doona ha haysto haddii uu wax soo saaro waa in sida ay tahay bini'aadamku ugu faa'iidaystaan loona qaataa maxaa yeelay mar kastoo madax uu xanuunaba ama aspirin iyo wixii la mid ah kiniinada madax xanuunka ah waynu qaadanaa waynu aaminsannahay waxay qabanayaan qof madax xanuunaya lagama yaabo inuu maxaa la dhihi jiray uu dacaar cabo ama maxaan ku radaa toon uu cuno saan ila tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu